ganacsade u dhashay dalka Hindiya ayaa waxa la sheegayaa inuu xaaskiisa u dhisay guri yar oo qurux badan oo u eg guriga caanka ah ee loo yaqaan Taj Mahal. Haddaba ganacsadahan iyo xaaskiisa ayaa waxa la sheegay inay isqabeen muddo 27 sano ah. Muddada kadibna jacayl uu qabo xaaskiisa oo u doorbiday inuu gurigan u dhiso una ekeysiiyo guriga caanka ah ee la yiraahdo Taj Mahal. Warbaahinta caalamka ayaa arrintan qaadaa dhigaysa waxaana waraysiyo laga qaaday ganacsadahan u dhashay dalka Hindiya. Ganacsadahan daadiisu waxa weeye 52 jir. Mar warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kharashka gurigan kaga baxay ay dhigihiin 20 bilyan oo rubi oo u dhiganta 260,000 oo dollar. Ganacsadahani ayaa sheegay in kharashka inta leega uu galay si uu raali geliyo marwadiisa, taasi oo uu sheegay inuu aad u jecel yahay. Haddaba Taj Mahal ayaa waxa uu yahay dhisme la dhisay qarnigii 17aad waxaana dhisay Mughal si loogu xusuusto boqoradiisii Mumtaaz oo geeriyootay xilliga ay umuleysay cunugoodii 14aad. Taaladan yaab kale oo caan ku ah quruxda iyo xajmigeeda waa mid kamid ah meelaha ugu waaweyn ee dalxiisayaasha dalka Hindiya ay yimaadaan. Waxa la qiyaasaa ka hor intii aanu koronuhu dhicin in maalintii ay iman jireen ugu yaraan 70,000 oo qof. Dadkaasi oo isugu jira dad caana iyo dad caadiyaba. Dadkani ayaa waxay ka kala yimaadaan dhammaan daafaha caalamka waxaana u soo safraan inay ku dalxiisaan Taj Mahal sawirana ay ku galaan. Inta badan waxa yimaada lamaanaha doonaya inay isguursadaan kuwaasi oo sawirada ay ku soo dhaweynayaan meherkooda ku sii gala goobtani. Gurigan uu ganacsadahan u dhashay dalka Hindiya ku maamusay kuna sharfay marwadiisa ayaa waxa uu ka kooban yahay 2 qol oo hurdo ah iyo sidoo kale qol maktabad ah iyo waliba qol jimicsiga. Muuqaalka dusha waxa uu eegyahay dhismaha Taj Mahal.